habeen wanaagsan daawadayaal haddii aad Soomaaliya ku sugan tahay waxay ku tahay xilli habeen ah haddii aad joogtid wadamada caalamka waxa laga yaabaa inay ku tahay xilli kale waqti walbo ay ku tahay wanaagsan ayaan ku leenahay waa habeenimo khamiis ah tirada taariikhduna waxay ku beegan tahay 13 bisha November 2025 waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo xog iyo macluumaad degdeg ah oo iminka soo kordhay qodobada wararkeena caawa aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya siyaasiyiin caan ah oo gaaray guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo maxaa ka jira in rag gacantii midig ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ahaa in ay caawa ku sii qulqulayaan hoyga madaxweyne Farmaajo uu ka degan yahay aaga Mirnaayo oo ololihiisa dhinaca doorashada ay ka qayb qaadanayaan waxaan kula wadaagi doonaa ragga caawa booqday guriga Farmaajo kulamada xasaasiga ah ee ka socda dhaqdhaqaaqyada la dareemayo iyo wararkii ugu dambeeyay ee ciidamo si gaar ah amnigiisa u adkeynaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya dawladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo ku daadisay hoyga madaxweyne Farmaajo uu ka degan yahay aaga Mirnaayo iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaasi ay ka wadaan ciidanka dawladdu halkaasi ay ku daadisay haddaba ciidankan maxay yihiin maxaase ka jira in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilligan uu walaac ka muujinayo imaatinka madaxweyne Farmaajo iyo ololihiisa siyaasadeed uu ka bilaabay caasimadda qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya garaadada waqooyi bari oo la kulmaya madaxweyne Farmaajo maxaa ka jira in madaxweyne Farmaajo ay kala hadlayaan arrinta la xiriirta tagitaanka magaalada Laascaanood iyo ka qaybgalka على مسارك مدحوينها مامولكا وقوي بري عبد القادر فردية جراد جامع جراد إسماعيل أضل بضي إن الله كل ما مدحوينه فرماجو جرادنا مالمي وجودن بيجي مقدشة يكسو جناين حق أيان إذا كجاهنا أرنتاس اللي حريرتا وضبضة كلا وركنا أتقضى وندونتان وحقيب كنقونيا إذا مو تجديد كدجال كعاوة كبحي تلسك جوج عالدجارنا تلسك أوج dhaqdhaqaaqyada ay soo kordhiyeen ciidanka SSC qaatumo iyo amarada culus ee la duldhigay ciidankaasi ayaan ku soo gudbin doonaa iyo waxa caawa ka soconaya gobolka Sool wararkii ugu dambeeyay ayaa daawan doontaan qodobada iyo qodobo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaan idin soo gudbin doonaa haddii aad nagu cusub tahay waxaan ku leenahay like saar muuqaalkan subscribe de boggan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada halkan uga hela wararka warbixinada iyo macluumaadka mar walba aan halkan ku soo gudbinayno aragtidaada nagula wadaag hoose commentiga oo marka hore ka aragti dhiibo qodobada aan markaasi idin dul marnay waa hagaag saaxiibayaal mar kale fiid wanaagsan ayaan idin leenahay qaybaha ugu horeeya ee wararkeena ayaan ku bilaabaynaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo oo ay galbinayaan gaadiid ciidan oo aad u tiro badan siyaasiyiin caan ah iyo sidoo kale xubno markaasi ka tirsan dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa maanta sida aad ka warqabtaanba si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada caasimadda Muqdisho madaxweyne Farmaajo tan iyo markii uu yimid ilaa caawa oo aan kula hadlayo hoygiisa waxa ka soconaya kulamo xasaasi ah oo siyaasiyiinta waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada uu la qaadanayo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ayaa Muqdisho u yimid ololihiisa dhinaca doorashada iyo sidoo kale in uu markaasi amba qaado xisbigiisa nabad iyo nolol qaabka xilligan ay ugu tartami karaan xilka madaxweyne Farmaajo oo 3 sano iyo barkii la soo dhaafay aan saxaafadda soo hor istaagin isla markaana aan laga haynin hadallada ay ku hadaaqaan siyaasiyiinta kale ee markaasi ka soo horjeeda dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ayaa xilligan waxa uu bilaabay ololihiisa dhinaca doorashada ah oo magaalada caasimadda Muqdisho oo markaasi ka hirgelinayo rag caan ah oo markii hore liddi ku ahaa madaxweyne Farmaajo xilligii uu talada hayay ayaa iminka gurigiisa si weyn ugu sii qulqulaya marba marka ka dambaysa rag aadan rumaysan karin haddii aan kuu sheego ayaa caawa la soo warinaya in ay gaareen hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo raggaasi waxaa ka mid ah Muuse Suudi Yalaxow iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ninka lagu magacaabo Axmed Macalin Fiqi iyo rag caan ah oo ka mid yahay Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish raggan ayaa la tilmaamay in ay wax ka dharinayaan aragtida la xiriirta in la gado doorashada Farmaajo sidoo kalena xilligan abaabul ballaaran loo sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi
farmaajo ayaa diiday in uu la kulmo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ah ee fadhigooda uu yahay hotelka Jazeera ee magaalada Muqdisho. hoyga farmaajo ayaa laga dareemayaa mashquulkii ugu xoogganaa. shacabka ayaa qaarkood la tilmaamay in xilligan ay doonayaan in ay la kulmaan madaxweyne farmaajo, laakiin maalmaha soo socda ayaa la filayaa in madaxweyne farmaajo uu la kulmo qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimadda, iyadoo la sheegay in la iclaamin doono goob fagaaro ah oo madaxweynuhu uu khudbad uga jeedin doono markaasi qaar ka mid ah shacabka caasimadda ku dhaqan oo uu doonayo in xilligan ay qayb ka noqdaan ololihiisa dhinaca doorashada. dad badan oo darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya ayaa tilmaamay in madaxweyne farmaajo uu kasbaday shacabka ku dhaqan Soomaaliya oo dhan, kuwaasi oo xilligan doonaya in mar kale talada dalkan uu la wareego, halka dadka siyaasiyiinta ah ee ka aragtida duwan madaxweyne farmaajona ay dhaliilayaan xukunkiisa siyaasadeed 5 sano ee la soo dhaafay ee uu dalkan hogaaminayay. laakiin marka loo eego xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jira ee uusan ku dhaxmilmin madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo intii xukuumadda ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ay arriminaysay ayaa kor u sii qaaday ololihiisa dhinaca hanka doorashada iyo sidoo kale in uu markaasi noqdo nin taageero iyo shacbiyad badan ku dhaxle shacabka Soomaaliyeed. dadka darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa ay tilmaameen in farmaajo xilligan aysan jiri karin siyaasi la tartami kara haddii la aado doorasho qof iyo cod ah, marka laga soo tago in xildhibaanada ay wax doortaan teendadii afisyoonina lagu laabto. caawa magaalada Muqdisho waxa ka soconaya kulamo xasaasi ah, waliba aaga Mirinaayo oo ciidamo aad u fara badan ay isku gadaameen guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo, waxaana la sheegay in ciidamadan ay si gaar ah uga amar qaadanayaan General Indha Cadde iyo Alxaaji Muuse Suudi Yalaxow, kaasi oo la sheegay in aysan kaamirooyinka soo qaban, laakiin caawa ku sugan hoyga madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo sida xogo iyo macluumaad la helay ay xaqiijinayaan iyo ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan guriga madaxweynihii hore ee Soomaaliya. ololaha xisbiga, daafurkiisa, xarunta xisbiga iyo sidoo kale macluumaad kale oo la xiriira dhinaca doorashooyinka ayaa xilligan la diyaarinayaa oo hoyga farmaajo ka soconaya. maalmaha soo socdana waxaa la filayaa in uu qaabilo rag aadan malaysan karin in garabka farmaajo ay noqon doonaan. aragtidaada nagula wadaag qaybaha hoose commentiga, maxaa kaaga baxay kulamada xasaasiga ah ee madaxweyne farmaajo uu markaasi ka wado magaalada Muqdisho tan iyo markii aroornimadii hore ee saaka saacadu markay ahayd 8 aroornimo uu ka soo degay magaalada Muqdisho, gaar ahaan garoonka Aadan Cadde oo xitaa la arkayay askartii ciidanka militariga iyo kuwii booliska oo salaan u saaraya madaxweyne farmaajo, taasi oo noqotay mid qiiro gelisay askarta maadaama uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee markaasi sameeya nidaam ay leeyihiin askarta, nidaam ay lacag ku qaataan iyo sidoo kale aaladda markaasi elektarooniga ah ee askarta lagu diiwaan geliyo. haddaba wixii ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan, laakiin aragtidaada nagula wadaag qaybaha hoose commentiga. markana dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamada loo yaqaano Haram Cad waxa ay ku daadisay aaga hoyga Mirinaayo uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. dadka darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa ay tilmaameen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud arintan walaac cusub ay ku beertay maatinka madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo oo uu tilmaamay markaasi in xilligan ay walaac xoogan ka muujinayaan xubnaha xilligan ka arriminaya filla Soomaaliya. dadka darasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxa ay tilmaameen in xilligan ay soconayso dhaqdhaqaaqyo culus oo ay wado dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo laga yaabo xitaa in ay qaado talaabooyin markaa lagu caburin karo aragtida siyaasadeed ee madaxda ka aragtida duwan dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo uu qayb ka yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo, kaasi oo xilligan wada dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo markaasi dhinaca doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha la xiriira. ciidamadan ayaa la sheegay in ay si toos ah uga amar qaadanayaan filla Soomaaliya. lama oga ciidankan waxa ay soo kordhin doonaan, laakiin caawa waxaa la arkayaa ciidankan oo dhaqdhaqaaqyo la sheegay in ay ka wadaan aaga guriga Mirinaayo uu ka degan yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo, inkastoo ciidamo kale oo iyaguna ilaalo u ah madaxweyne farmaajo ay markaasi dhinaca guriga xigaan, haddana ciidankan waxaa la sheegay in iyaguna ay qayb ka qaadanayaan amniga sugitaankiisa sida ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya oo aan la xiriirnay ay inoo xaqiijiyeen. lama oga tilaabooyinka ay qaadi doonto dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan arinta la xiriirta siyaasiyiinta ka aragtida duwan ee xilligan farmaajo uu markaa
markaasi ugu sareeyo ee ku soo badanaya magaalada caasimadda ee Muqdisho dibna ugu soo laabanaya maadaama xilligii doorashada ee markaasi la gudageli rabo sidoo kalena ay soo socdaan doorashooyinkii dalka ka dhicila wixii ku soo kordha wararkeena iyo warbixinadeena soo socda ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo raali ka noqdo markana garaadada maamulka waqooyi bari ayaa la filayaa in ay la kulmaan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyadoo markaasi garaadada qaarkood ay kala hadli doonaan tagitaanka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in uu diyaariyay qaabilaada garaadada maamulka waqooyi bari oo ugu horeeyo garaad jaamac garaad Ismaaciil kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada caasimadda ee Muqdisho garaadka beesha jaamac siyaad ayaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu kala hadli doono arinta la xiriirta in markaasi madaxweyne Farmaajo uu qayb ka noqdo ragga xilligan marka la doonayo in ay ka qayb galaan caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye lama oga sidoo kale markaasi xilliga garaadada iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo ay kulmi doonaan laakiin waxa soconaya dhaqdhaqaaqyadii ugu xoogana oo xilligan lagu doonayo in garaadada iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo la isku soo horfariisiyo madaxweyne Farmaajo ayaa maalmaha soo socda waxa uu kulamo xasaasi ah la qaadan doonaa madaxda markaasi dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya ku jira iyo sidoo kale rag markaasi qayb ka ah qaybaha dhaqanka iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho markaasi ku sugan garaadada maamulka waqooyi bari maalmihii ugu dambeeyay waxa ay kulamo xasaasi ah la qaadanayeen madaxda ugu sareysa dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya waxyaabaha laga wada hadlayeen waxa qayb ka ahaa arinta markaasi la xiriirta dhinaca maxaabiista oo markaa ay markaasi dawladda federaalka Soomaaliya doonayso in markaasi la sii daayo xogaha iyo macluumaadka la helayo waxa ay tilmaamayaan in garaad jaamac garaad cali odayaasha waa garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo odayaasha dhaqanka markaasi ka soo jeeda beelweynta dhulbahante ee ku sugan caasimadda ay tagi doonaan hoyga madaxweyne Farmaajo oo ka degan yahay aaga Marinaayo halkaasi oo kulamo xasaasi ah ay kula qaadan doonaan sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in uu tago magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyadoo la diyaariyay goobtii uu waxana garaadadu markaasi ay salaan iyo sidoo kale markaasi arrimo kale oo la xiriira dhinaca siyaasadda ah ay uga wadaan dhinaca madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye iyaga oo ka wakiil ahna waxay la kulmi doonaan madaxweynaha waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya ee sagaalaad Maxamed Cabdilaahi Farmaajo kaasi oo ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho haddaba wixii ku soo kordha garaadada la kulankooda iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada culus ee xilligan soconaya ee markaasi madaxweyne Farmaajo urarkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo raali ka noqdo markana ciidamo wata gaadiidka dagaalka ayaa ka baxay taliska Gooja Cadde iyagoo ciidankan gaaray taliska la yiraahdo guumays oo ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka waqooyi bari halkaasina dhaqdhaqaaqyo ka wada ciidankan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu tababar xoogan uga socday taliska la yiraahdo Gooja Cadde halkaasi oo laga fulinayay dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa oo ka dhan ah ciidanka maamulka Somaliland ciidankan waxa la sheegay in uu amarka ay ku bixiyay madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye kaasi oo maalmihii ugu dambeeyay abaabulayay dagaalka ka dhanka ah ciidanka Somaliland ee ku sugan og iyo sidoo kale deegaanada kale ee ka tirsan maamulka markaasi waqooyi bari ee magaalada Ceergaabo ay kamid tahay waxa la doonayaa ciidamadan iyo sidoo kale ciidamo kale oo lagu dhafay oo ku sugan aag la yiraahdo guumays in ay markaasi gacanta ku dhigaan magaalada Ceergaabo ee gobolka Sanaag halka oo la diyaarinayo xilligan duulaankii ugu cuslaa oo la doonayo in markaasi lagu qaado ciidamadan waxa la sheegay in uu galbinayay taliya Cabdi Madoobe oo kamid ah saraakiisha ciidanka maamulka waqooyi bari ee xilligan wada gulufka dagaal ee ka dhanka ah ciidanka maamulka Somaliland iyadoo xilligan markaasi la diyaarinayo dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa caawa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool jawigeedu waa uu degan yahay waxaana la tilmaamay in dhaqdhaqaaqyo culus ciidanku ay ka wadaan iyadoo madax iyo siyaasiyiin kala duwan ay doonayaan in ay tagaan magaalada Laascaanood oo amnigeeda aad loo xaqiijiyay Cabdulqaadir Firdhiye halka la doonayo in uu ku qabto markaasi caleemasaarka marka la doonayo in uu ka dhaco magaaladaasi si loo ambaqaado howlaha dhinaca maamulka ah ee xilligan hor yaala maamulka uu hogaaminayo Cabdulqaadir Firdhiye oo muddo 3 bilood ku dhow markaasi
doorashadiisii ay ka soo wareegatay ilaa iminka madaxweyne xasan sheekh maxamuud tegitaankiisa iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre ayay u xayiran tahay caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari cabdulqaadir firdhiye in ay ka dhacdo magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool waxaana xilligan markaasi la sheegay in ay markaa soo dhowaatay caleemasaarka madaxweynaha maamulka waqooyi bari inkastoo aan laga gaarin xal waara ee arinta la xiriirta siideynta maxaabiista oo laf dhuun gasha ku noqotay cabdulqaadir firdhiye si weyn ay uga gadoodeen dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada maamulka waqooyi bari lama oga go'aanada culus ee ka soo bixi doona maamulka waqooyi bari saacadaha soo socda iyadoo markaasi xilligan la filan karo in go'aano culus uu qaato madaxweynaha maamulka waqooyi bari cabdulqaadir firdhiye ciidamada caawa ka ambabaxay taliska la yiraahdo gooja cadde ayaa la sheegay in durbadiiba ay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo culus iyadoo ciidanka ee maamulka waqooyi bari caawa ay tijaabiyeen hub iyo madaafiic culus xilli ay markaasi gaareen ciidamadu xirada la yiraahdo guumays oo ka tirsan gobolka markaasi Sool wixii ku soo kordho wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii Allah ugu dalo raali ka noqdo haddii aad nagu cusubtahay waxaan ku leenahay nagu soo biir like share muuqaalka subscribe bogan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada halkan ugu xiran mar walbana hela macluumaadka aan soo gudbinayno waad maasantihiin habeen wanaagsan